shirweynihii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Inta badan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa ka soo qayb galay shirkan, iyadoo ay ka muuqdeen kaadirinta xisbigaasi ee hore u soo bandhigay hankooda la xidhiidha hogaaminta xisbiga ee mustaqbalka. Shirka golaha dhexe ee maanta ka furmay magaalada Boorame ayaa guud ahaanba lagu soo hadal qaadin ajandaha shirka u yaala ee lagaga hadli doono maalinta berriya. haddaba marka uu shirkaasi dhammaaday ayaanu waraysi gaara la yeelanay Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosi oo ahaa wasiirka hore ee caafimaadka Somaliland. waxaanu Harmag News uu uga warramay aragtida uu ka qabo shirka haatan ka furmay magaalada Boorame. Su'aashii ugu horreysay aan weydiiyey oo ahayd sida uu u arko furitaanka shirka lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa waxa uu ku jawaabay. si sharaf oo wanaagsan buu u furmay dhammaan xubnihii golaha dhexe ayaa ka soo qayb galay. madaxweynihii baa joogay, madaxweynaha baa joogay, gudoomiyihii baarlamaanka joogay. shir weyn oo muhiim ah baa furmay, socon doona insha Allah. Xagle Toosi maxaa laga yaabaa in lagaga hadlo shirka lixaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye oo ajandadeedina qodobo badan baa laga hadli doonaa oo dalka iyo dadka badan waa xisbiga gudihiisa ku xisaabtami doona, xukuumadda la xisaabtami doona, sidii madaxweynuhu khudbadiisa ku darsaday. marka uu dhamaadana de wixii ka soo baxaa waa la idin la socodsiin. Xagle Toosi waxaan ogeyn in shirkii ugu dambeeyay golaha dhexe xisbiga kulmiye aad isku sharaxday jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye. ma laga yaabaa imika in aad isku sharaxdo hoggaanka xisbiga? kulley hadda doorasho ma taagna, meeshana waa xaflad munaasabad, waa shirkii golaha dhexe. doorasho aan ogahay oo ka jirtaana ma jirto imika hoggaanka sare. waan leeyahay oo horaan u sheegay, marka ay ii muuqatana waan sheegi doonaa insha Allah. marka shirkan golaha dhexe kulmiye waqti xaadirkan ka socda Boorame berri soo xirmi doona wax doorasho ah oo habeerato hoggaanka xisbiga ah oo la sameeyo waxaa jira kulleyba ajandahay ku jiri doontaa wixii ka soo bixi doona iyo waxa lagu dooran doona iyo waxaas. laakiin anigu hadda shakhsi ahaan ma jirto position aan u sharaxnahay oo xisbiga dhexdiisa oo imika Xagle Toosi waxaa jiray waqtigii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu doorashada ku soo baxay ee xukuumadda soo dhisay waxoogaa iskhilaaf baa idin soo dhex galay. arrintii xal ma ka gaadhay? wax khilaafi ma jirin runtii. aniga madaxweynuhu mar walba saaxiib baanu nahay, iminkana saaxiib baanu nahay. khilaaf dhexdayada soo galayna ma jirin. wax yaroo aan madaxweynaha xaggiisaba ahayn mar dhacay way jireen, laakiin aniga madaxweynaha marnaba haba yaraatay khilaafna ma soo dhex galin. wax wada shaqayn ka mid ka dhaxaysa wada shaqaynta aanu iminka wasiir ma yihi, laakiin madaxweynaha aad baan isugu dhownahay. wax xiriir oo arrimaha xisbiga ama arrimii maadaama xisbiga ka tirsan tahay wax xiriir mid dhex maray madaxweynaha mar walba madaxweynaha waa xiriirnaa, waana aadna waan u taageeraa madaxweynaha. ugu dambeyn Xagle Toosi maxaad filaysaan shirka ay ka soo baxaan golaha dhexe xisbiga? waa markay gaadho waqtigeeda la idin sheegi doonaa insha Allah. intaasbaynu kusoo gabagabaynaynaa waraysigaanu la yeelanay wasiirkii hore wasaaradda caafimaadka Somaliland Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosi oo ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee maanta shirku uga furmay magaalada Boorame. waraysigan mid lamid inta ku kulmayna Cabdirasaaq Good Nuur iyo dhammaan bahawlwadeenada Harmag News idin kaga tagay saas nabadgelyo.